الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. waxaan soo haynay almuqadimatu al-ajurruumiyya. darsigiina ugu dambeeyay waxaan kaga soo hadalnay alkalaamu luqatan wastilaaxan. alkalaam fi curfi nuxaah waxaa loo yaqaan wixii laga helay afar qayd: allafdu waltarkiibu walifaadatu walwadcu. quyuudaas afarta ah si faahfaahsan darsiga horaan uga soo hadalnay. darsigana maanta wuxuu ku saabsan yahay aqsaamu alkalaam, bimacnaa ajzaa'uhu. kalaamka carabiga wuxuu ka kooban yahay kelimaad. kelimaduna saddex baa loo qaybiyaa: ismun wa ficlun wa xarfun. marka mid kastoo ka mid ah saddexdan qayb ee kelimada loo qaybiyey waa juzun min alkalaam. kalaamka ayaa laga sameeyaa. marka aqsaamu alkalaam waxay u jeedaan ajzaa'uhu, qaybaha kalaamka laga samayn karo. wuxuu yidhi marka mu'alifka raxmatullaahi calayh: wa aqsaamuhu, aqsaamu alkalaami halaahatun, saddex weeyaan: ismun wa ficlun wa xarfun. xarafkaasoo jaa'a yimid limacnan, liyadulla macnan, si uu macno kuu tuso. hadalkuna saddexdan baa laga sameeyaa. waxaan ku bilaabaynaa alismu. ism waxay u yaqaanaan culamaau nuxaah kelimatun dallad calaa macnan fii nafsiha walam taqtarin bizamaan. isimku waa kelimadaasoo dallad tustay calaa macnan, macno ayay tustay, fii nafsiha, binafsiha, laf ahaanteedii macnaha kuu tusaysaa, oo markii lagu dhawaaqo macnaheedu waa la fahmayaa. walam taqtarin, kelimada macnaheedu lama xiriiro bizamaan, zaman lama xiriiro, oo markii isimka lagu dhawaaqo isimkaasi macnihiisu zamanku tusi maayo. mathalan, muxammadun, lafdigan muxamed waa magac qof loo bixiyey. waxaa la mida makkata, waa magac magaalo loo bixiyey. waxaa la mida kitaabun ama farasun. kelimaadkaasoo dhan waa asmaa. mid kasta markii lagu dhawaaqo macno ayuu ku tusayaa. macnuhu ku tusayana waa mustaqil, uma baahno shay kale in lala xiriiriyo. markii lagu dhawaaqo waa la fahmayaa. taasi u jeedaan marka dallad calaa macnan fii nafsiha. walam taqtarin bizamaan waxay u jeedaan muxammadun oo kale mathalan, macnuhu tusaya oo ah magac shakhsi uu leeyahay. macnahaasi zaman lama xiriiro, oo la dhihi maayo shalay maxamed buu ahaa, maanta maxamed ma aha, ama maantuu maxamed yahay saadama maxamed ma aha. maya, maxamed qofka markuu dhashaa loo bixiyaa, ilaa uu ka geeriyoona maxamed buu ahaanayaa. makkata, maalintii magacaas la bixiyey, ilaa yowmina haada magacaasay wadataa. idan lafdigan makkata macnuhu tusaya oo ah inuu yahay magac magaalo, zaman lama xiriirayo. waxaa laga yaabaa ardayga fatinka inuu isweydiiyo: alleylu wannahaaru wa asmaa, maca daalika zaman bay tusayaan. waxaad ku baraarugtaa walam taqtarin bizamaan. zamankan laga hadlaya waa zaman mucayan ah. zaman mucayanna waxay ka wadaan kelimada markii lagu dhawaaqo waxay tusinaysaa zaman lasoo dhaafay mathalan, oo loo yaqaano almaadi, ama zaman hadda lagu jiro oo loo yaqaano alxaal, ama zaman soo socdo oo loo yaqaano almustaqbal. mid ka mid a asmaantan, almaadi walxaal walmustaqbal, hadday tusto zamankaasi waxaa loo yaqaanaa zaman mucayana. mid ka mid hadday tusto, hadday kulli wada tusi karto zamankaasi waxaa loo yaqaanaa mubham. zamanka mubhamka ah ma laga hadlayo, waxaa laga hadlaya waa zaman mucayan ah. macnahan kuu soo dhoweeyo: alleylu waa habeen. mathalan, adoo saq dhexa jooga ayaa waxaad dhihi kartaa saacad ka hor waxaan sameeyey kada wa kada. idan wixii aad samaysay saacad ka hor markii adi lagu fiiriyo waa zaman maadi lasoo dhaafay, soo maha, laakiin waa juzun min alleyl, waa qayb habeenkii ka mid ah. sidoo kale waxaad oran kartaa adoo saq dhexa jooga saacad ka bacdi ayaa waxaan tukanayaa salaatuleyl. waqtiga aad ka hadlaysid waa waqti soo socdo mustaqbal ah, waana juzun min alleyl, habeenkii qayb ka mid ah waaye. idan alleylu zamanku tusaya waa mubham. saddexda waa tusi karaa, soo maha. markaad hadlaysid waa zamanulxaal. intaadan hadlin wixii aad samaysayna waa maadin. bacda zaman takallum wixii aad samayn doontidna waa zaman mustaqbal ah. idan habeenka saddexdii zamanba waa kulminayaa: almaadi walxaal walmustaqbal. idan wuxuu tusay zaman mubham ah. zamanka laga hadlaya meeshaani zamanka mubhamka ma ahane waa zaman mucayan ah. alficlu waxay ku tacriifiyaan kelimatun dallad calaa macnan fii nafsiha waqtaranat biaxadi alasminati athalaatha. waa kelima dallad calaa macnan, macnay tustay, fii nafsiha binafsiha, laf ahaanteeday kuu tusaysaa. marka dhinacaasi waxay uga eg tahay isimka iyo ficilkuba mid walboo ka mid ah wuxuu tusayaa macno mustaqil ah. markii saa loogu dhawaaqaba waa la fahmayaa. laakiin wax isku khilaafsan yahay xagga zamanka. wuxuu yidhi waqtaranat, kelimadan macnaheeda waxay la xiriiraa biaxadi alasminati athalaatha, saddexda zaman mid ka mid ah. imaa maadi buu tusayaa, ama xaal, ama mustaqbal.
مثلا كتب وكلمة، كلمة سوحي تستي على معنى أي تستي بنفسها أي تستي ومرك الغدى وقوى فهمية معناها سي وحول حريرة زمن لصور دافي سببتها كتب معناه ذو حويا وقري انت أنا هذلين كهر أي قري. الكتابة وقعت في الماضي زمن لصور دافي وقرال كدعي. يكتب وكلمة، كلمة سوحي تستي على معناها سنو الكتابة معناها سي وحول حريرة زمن كاسن هو زمن الحال حد أيان قرية. سيدوك لا أكتب وكلمة معناه تستين وطلب الكتابة قرال أيان لقاد البيا معناها سي وحول حريرة زمن صعودة ومركان هذا الكلام يكبعدي أيان لدونينا قرال كبلوديد إذن هو زمن صعودة. marka khulaasadu waxa weeyaan ficilku macno tusaa macnahaasna wuxuu la xiriiraa zaman muayyan ah ima al-maadi aw al-hal aw al-mustaqbal. تعريف الفعل waxa weeyaan كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. الحرف حرف laga hadlayo waa xarfu macnan. xuruuftu waa laba nooc حروف المباني iyo حروف المعاني. حروف المباني waxa weeyaan xuruufta alif ba ta tha waxa kale loo yaqaan الحروف الأبتتية. حروف تاني كلمة على قسمية مثلا زيد لفظا زيد وحككو بين هي حروف الزاي والياء والدال حرف كستو كم إذا معنا ما تصيه لكن مركي الاسكو جيو كلمة كسميس ميسة إذن كوازو علو يقانا حروف المباني. حروف تاني معنا موتان لكن وحلو كياني سي كلمة لو قسميه وحا خلافا حروف المعاني. حروف المعاني وحيكو تعريفيان كلمة ويان دلت تستي على معنى تستي في غيرها مع غيرها غير كد مركي على حريريه أي معناها تسيسا. مثلا من وكلا من مركوا حرف ولو حرف معنى حرف كان معناه تصيه مرة ما يسترميه إلا للحريريه كلمة كلا من وكلا مثلا وحلا لحريريه أسماء مثلا وحلا إذا هي سافرت من مكة من وحرف مكة واسم من معناه تسيسه مرة ما يسترميه إلا للا حريرية مكة معناه نحن نقول سافرت وحنكسو سفري من مكة ينكسو سفري من تاني وحي فائدينيسا الابتداء الصعدال كاغا ميشوك بالعمضي إلى وحرف معنيه مرة ما يسترمي إلا اسم للا حريرية مركي للا حريرية معناه فائدين والانتهاء. مثلا سافرت من مكة إلى الكوفة الصعدال كاغا حكسو بالعمضي مكة waxaa ku tusay min sababta min waxay tusaysaa ibtidaa xageebu ku dhamaaday ila al-kuufati inuu socdaalkaaga kuufa ku dhamaaday waxaa ku tusinaya ila idan ila waxay tustaa al-intihaa. marka macnahan min ay tusayso al-ibtidaa ilana ay tusayso al-intihaa ma dhamaystirmayo illa fi ghayriha ghayrkeed markii la xiriiriyo macnahan dhamaystirmaya. waxaa muhiim ah inaad ku baraarugtid xuruuf al-macaani waa qayb kamida kelimada dhinacaas marka waxay ka siman yihiin isimka iyo ficilka sababtoo waxaan hore usoo sheegnay kelimadu waxay ka kooban tahay ismun wa ficlun wa xarfun sooma xarafkaas waa xarful macna. ama xuruuful mabaani waxaa laga wadaa xuruufta kelimada laga sameeyo kulligood way saameynaysaa. kelimada ha noqoto isim sida zayd oo kale ama ha noqoto ficil sida kharaja oo kale ama ha noqoto kelimadaasi xarfu macnan مثلا من waxay ka kooban tahay xuruuful mabaani almiim والنون. إذن حروف المباني كلمات كالغا سمية كلمات كانوا وحي قيبسميان اسم وفعل وحرف. حرف كاس لغا هدليو وحرف المعنى إما أهن حرف المبنى أركاس لمركا كبراروك. هل كانوا حنقول لما هذه أجزاء الكلام كلام كلمات كالغا سمية مؤلف كان حوكا عبري أقسام صدح ويان اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وقيد مهمة ونصو إشارني. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.